kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena toddobaadlaha ah ee khamiis khayran fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar like ta nagu dhiirigeli warcelintaaduna waa noo muhiim aan ku bilaabo qodobada aan weydiinayno toddobaadkan waxa ka mid ah islaan aan unsan jirin haddii ay unsato maxaa dhacaya aadan barado cali iyo calaamasaarka madaxweynaha Jubbaland Soomaaliland saddexdii qof ee meel socotaba mid ayaa waalan kuma dooran in aad ka qayb gasho calaamasaarka Jubbaland xildhibaano ka tirsan Puntland oo la hadlay madaxweyne Dani maxaad kala socotaa xaaladda dagaal ee Turkiga uu la galay ciidamada Kurdiyiinta shirka jaamacadda Carabta iyo madaxweyne Trump oo wali u goodinaya Turkiga qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad waxaad ku maqli doontaan warbixinteena toddobaadlaha ah تردر كراردي تحسي دحمري مركوت شوق ملدحي سوندن باجري وددا ككلا جب وجوه ملتحي سوندن باجري وددا ككلا جب جدي هلاي تركو حدايا جدي هلاي تركو حدايا الحنون نجمدن أجنتدو حاجرو عونات جعلا تنشري انتو ما نراك نحويتي لابتي ونبادك جيب سادا aan ku bilaabay xogogaalo ka tirsan madaxtooyada Turkiga ayaa BBC-da toddobaadkan u xaqiijiyay in madaxweyne Erdogan uu ku diray qashinka warqad looga soo diray aqalka cad ee Mareykanka taas oo timid kadib markii ciidamada Mareykanku ay ka baxeen waqooyiga Syria kolkaas oo ay ciidamada Turkigu ay galeen warqadan ayaa waxa ku saxiixnaa madaxweynaha Mareykanka Trump waxana ku qornaa aan ka wada shaqeyno heshiis fiican ma doonaysid inaad mas'uul ka noqotid dilka kumanaan qof anigana ma doonayo inaan mas'uul ka noqdo burburinta dhaqaalaha Turkiga waana sameyn doonaa taariikhda sida aad doonayso ayay ku xusi doontaa haddii aad midda saxda ah iyo qaabka wanaagsan aad u samaysid tan waligaa waxaad noqon doontaa qof xun haddii wax wanaagsan aysan dhicin ha is adkaynin ha noqon doqon haddaba madaxweyne Erdogan oo ka jawaab celinaya warqadaasi ayaa ku daray qashinka isagoo sheegay inuusan marnaba doonaynin inuu kala hadlo Mareykanka arrimaha waqooyiga Syria madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa xayiray sidoo kale konton madax oo gantaalada nukliyeerka ah oo Mareykanka u yaalay gudaha dalka Turkiga sida uu ku waramay wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa isku dayaya sidii xal diblomaasiyadeed looga gaari lahaa arintan xilli Turkigu waqooyiga dalka Suuriya ka wado dagaalo uu ku baaxsanayo Kurdiyiinta Suuriya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo xogayaha arrimaha dibadda ayaa saacadaha soo socda waxa laga yaabaa in ay gaaraan Turkiga si ay halkaasi wada hadallo ula furaan madaxda Ankara dhanka kale ciidamada Turkiga iyo xulafooyinkooda Syria ayaa qabsaday dhul badan oo ka mid ah magaalada muhiimka ah ee Ras Al Ain halkaasi oo dagaalyahanada Kurdiyiintu ay iska caabin xoogan ka sameeyeen waxa sidaas sheegtay hay'adda la socota dagaalada Syria duqeyn xoogan ayaa ku socota Ras Al Ain saddexdii maalmood ee tagay waxaa sidaas yiri Rami Abdurrahman oo ah madaxa hay'adda fadhigeedu yahay Britain ee la socota xuquuqda aadanaha Syria ciidamada Turkiga iyo dagaalyahanada ay taageeraan ee Carabta ah
ayaa gudaha u galay magaalada Ras Al Ain iyagoo oo la wareegay kala bar magaaladaasi. ciidamada Kurdiyiintu ay hogaaminayaan ee ah kooxda SDF oo ay ka awood badiyeen ciidamada Turkiga ee dhulka iyo cirka ayaa lumiyay dhul ballaaran oo ku teedsan xuduudda Turkiga tan iyo markii howlgalka uu ka bilaabmay 9kii bisha Oktoobar. hase yeeshee waxa ay daafac xooggan ka galeen magaalada Ras Al Ain ayaga oo dhistay agag dhulka hoostiisa ah oo adag, taasi oo awood u siisay in ay muddo toddobaad ah iska caabin ku sameeyaan ciidamada Turkiga uu hogaaminayo. si kastaba iska caabintaas ayaa qarka u saaran inay soo gabagabowdo ayada oo ay ciidamada Turkiga gacanta ku dhigeen kala bar magaalada Ras Al Ain. jaamacadda carabta ayaa ka soo horjeesatay weeraradan Turkiga uu hogaaminayo odayn ay xubnaha jaamacaddu ay u qaadeen waa aqoonsiga howlgalkan uu Turkiga u bixiyay guga nabadda duulaan iyo dagaal argagixiso ayaa waxa kaliya diiday dalalka Soomaaliya iyo Qatar. inkasta oo ay wada codeeyeen oo ay ka soo saareen warbixino ay arintaasi ku dhaleecanayaan, haddana Turkiga ayaa ku gacan siiray. madaxweyne Erdogan oo ka hadlaya arintaasi ayaa waxa uu yiri waa aqli xumo in isla ururkii shalay u codeynayay in laga saaro Syria ururkaas uu isla maantana uu u doodayo sidii koox wax wanaajinaysa. sidoo kale midowga Yurub ayaa dhaliilay Turkiguna waxa uu xoojinayaa wali howlgalka uu ugu magac daray guga nabadda ee uu ka wado waqooyiga Syria. dhanka Kismaayo toddobaadkan waxaa lagu caleema saaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ee magaalada Muqdisho looga yaqaano Isortaha Kismaayo, waxaana caleema saarkan ka qayb galay madaxdii hore ee Soomaaliya, madaxda Puntland iyo wufuud ka socotay Kenya, kuwaasi oo jabiyay qaraar ay soo saartay dowladda Soomaaliya habeenkii Isniinta ahayd kaasi oo ay ku joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee Kenya iyo Kismaayo. iyadoo ay jirto wali dacwadda aan dhamaan oo Soomaaliya ay ka gudbisay Kenya oo ku saabsan hawada Soomaaliya ayaa khudbado halkaasi laga jeediyay waxaa ka mid ahaa khudbadii uu jeediyay Aadan Barre Ducaale, taasi oo aad looga hadlayay baraha bulshada iyo goobaha lagaga sheekeeyo arrimaha siyaasadda. marka nimayo waa nagu noqonina islaantii uusan jirin oo uusatay oo meelo badan ka gubatay aan nagu noqonina. marka soo dhawaada waxaan ugu dambeyn aan apology ka wadaa governorka Wajeer, governorka Garis iyo governorka Mandera oo dibadda ku maqan. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sheegay inuu doonayo in wada hadallo uu la yeesho madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan rabnaa saaxiibaday madaxda dowladda federaalka waan ogolahay waa madaxdayadii gogasha xafladda inay nagala soo qayb galaan aad bay u fiicnaan inkastoo abshir uu matalayo. waxaan rabnaa waddanka iyagaa xukuma, iyagaa waalida, iyagaa laga rabaa mas-uuliyadda inay iyagu qaataan oy waddankan hagaan baa laga rabaa. annagu khilaaf ma wadno, xumaatadooda kama shaqaynayno, wanaag baan rabnaa, hoggaamintoodaan rabnaa, waqtigooda inay dhammaystaan baan rabnaa, kuwa damaca kaga jira inay doorasho sidii shalay nin waliba ku yimaadaan rabnaay aan ilaalinno oo middaa ka shaqeeyeen. dhanka Puntland saxmad isdiidan oo siyaasadeed ayaa ka bilaabmatay toddobaadkan bilowgiisii xildhibaano kula hadlay magaalada Garowe. warfidiyeenada ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan siyaasadda madaxweynaha Puntland, sidoo kalena waxa ay dhaliileen tagis la'aanta madaxweyne Deni ee magaalada Muqdisho iyagoo madaxweyne Deni ku eedeeyay inuusan aqoonsanayn federaalka. xildhibaanadan hadlay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa dadka reer Puntland waxa uu sheegay had iyo jeer in federalismka dowladda dhexe diidan tahay. halkan waxaan ka cadaynaynaa in maamul goboleedyadu ay diidan yihiin federalismka. waqti aan dheerayn waxaa soo gaaray magaalada Boosaaso wasiiro uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda oo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo ay talo iyo hoga tusaaleyn iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed ee masiirka ummadda reer Puntland inay wax ka yiraahdaan, runtiina waday horumarin iyo in kaabayaasha dhaqaalaha iyo wada jirka Soomaaliya iyo dowladda federaalka in si wanaagsan loo hogaamiyo. maadaama ay ahayd Puntland hooyadii federaalka aasaastayna maanta inuu dalku noqdo federaal, waxaad moodaa in tubtii loogu talagalay uu ka leexday iyadoo loo gacan galay gacmo shisheeye iyo rag isbahaystay oo siyaasaddii Soomaaliyeed ku fashilmay inay maanta hogaankii u qabteen. run ahaantii waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa oo dhaliilaynaa
qaabka uu madaxweynuhu u hogaaminayo siyaasadda dalka oo aan ahayn barnaamijkii siyaasadeed oo uu baarlamaanka ka hor akhriyay shacabweynaha reer Puntland uu sheegay Somaliland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa walaac ka muujiyay xisbiga wadani oo warqad ay kaga hadlaabteen xubin ay ku lahaayeen guddiga doorashooyinka la socodsiiyay beesha caalamka madaxweyne Biixi ayaa sheegay in beesha caalamka uu ku jiro madaxweyne Farmaajo maadaama dawladdiisa la aqoonsan yahay la kala baqan mayno raayigaygu hadduu kaaga ka duway soo daa si asluulaysan oo soo daa kaliyaana raayiga ma lihin anna kaligay ma lihin waxay ka cawdeen oo yidhaahdeen madaxweynuhu saddex kuwii magacaabay eedaa sababta sharci waxa weeye sidii hoomeen u raacayna waanu kala raayi duwannahay hal nin tuurne ayaan la toosan labada xisbiya mucaaridka way fikiraan waxay keeneen labadii xubnood ee sharcigu iyaga soo jeediya kuma faragelin raayigoodii waayo cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib u jaagaraysa siday ahayd baan u qaaday guurtuna way ii keentay labadii ayagu door badan inay hawshaa ka soo baxayaan iyana kuma faragelin xeerkaa ah in dee la is-ixtiraamo awoodda joojinta dibadda aanu talaan leeyahay haddaan xitaa wax aqoonsan waxaan ku leeyahay xisbiga malaha arrintaa sharcigaasaa ku gafoo baarlamaanka way kuga qabsan doonaane halkaa ka sax midna ma odhan labada hayad baan u ixtiraamaya anna intii sharcigu ii soo baan soo furay waan isku daray maxkamad baa la geenayaa dadka maxkamaddu waa baarlamaankaa la leeyahay sharcigii aad dhigteen ee aad ansixiseen dadkaa la soo naqeeyey ee madaxweynuhu soo gudbiyey qaabkiisa ku soo daray sharcigii ma waafaqsan yihiin shirguddoonka baarlamaanka oo quriya arrintaa ma aha awoodda waxa leh goloweynaha baarlamaanka way faaqidi way ka doodi guddi bay u saari marka dambe cod bay u qaadayaan wixii ay soo celiyaan haddii aniga lagu soo celiyo kuwii aan magacaabay iyo haddii xisbi lagu soo celiyo ceeb ma aha ku kalun baa la keeni waa la sixi waayo sharciga saawda hadday si waadayaanna waa awoodoodu xisbigu wuxuu anigu inuu dib imaagay madaxweyne intuu saa yeelay ma yeelan waxba sharci baa raacay iminkana awood gacanteeda kuma jirta aniga iguma calanan karaan baarlamaanka u taalla weliba goloweynaha dhanka u taalla waxa la wuxuu golu soo saaray aan wax ku qanacsanahay waan aqbalaya biixtiraam hadday soo celiyaan waan bedelay hadday sii daayaan fiima axsan markaa wax buuq loo geliyo qaranka oo weliba warqadaas sida ku qoran la yidhaahdaa ku madaxweynaha ku ra'iiska guddoomiyaha baarlamaanka ku guddoomiyaha guurtida ku beesha caalamka oo beesha caalamka xafiiskeedu waa xayaa waa waxay u cusub beesha caalamka hadda ogow farmaajo waa ku jiraaye ilaa su-aalada la ictiraafsan yahay beesha caalamka xamar waa ka tirsanta waa la ictiraafsan yahay moogta arbay dee codsigu halkaaba ku dhacaa oo taladeena marka soo gala beesha caalamkana loo gacan gelinayaan warqaddaa ku socota aniga ilama hagaagsanaa laakiin way la noqotay taana cabashadooda intaasaan kaga gudbayaan waxaa kaloo iyada wasiirka cadaaladda Somaliland ayaa waxa uu wax matarayaal ku tilmaamay ciidamo ka goostay Somaliland kuwaasi oo ku biiray Puntland wasiir ku-xigeenka caafimaadka Puntland ayaa isaguna sheegay in saddexdii qof ee meel socdaba mid uu waalan yahay sida uu wasiirku ku soo bandhigay xog uu sheegay in wasaaraddiisu ka diyaarisay guud ahaan caafimaadka Somaliland Sacuudigana 35 qof oo ajaanib ah ayaa ku geeriyootay afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baskii ay saarnaayeen uu ku dhacay baabuur kale meel u dhow magaalada barakeysan ee Madiina shilkan ayaa dhacay habeenkii Arbacada sida uu sheegay afayeenka booliiska magaalada Madiina oo ay soo xigatay wakaaladda wararka Sacuudiga ee SBA dadka ku dhintay shilkan ayaa ahaa Carab iyo Eeshiyaan ka safray Madiina una socday Makka si ay u soo gutaan umrada sida ay sheegtay warbaahinta dawladda oo muujisay sawirada baska oo holcaya wakaaladda wararka SBA ayaa sheegtay in dadka dhaawacmay la geeyay isbitaalka Al-Hanna mas'uuliyiinta ayaa bilaabay baaritaano wargeyska oo kaas ee Sacuudiga ayaa sheegay in dhibanayaasha ay ahaayeen ajaanib ku noolaa Sacuudiga kuwaas oo gudanayay umrada barasaabka gobolka Madiina Amir Faisal bin Salman ayaa tacsi u diray ehelada dhibanayaasha wali lama shaacin dalalka ay u dhasheen dhibanayaashan balse ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa sidoo kale ka tacsiyay shilkan
gobolka Hiiraan. waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida la soo taagay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi iyo nin kale oo lagu magacaabo Nuur Ibraahim Mahad Alle oo loo haysto eedeymo la xiriira qarax lagu dilay Cabdirashiid Cusmaan Carab oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada Maxaas. waxaana dilkan uu dhacay 19 bishii Abriil ee sanadkan 2019. xafiiska xeer ilaalinta ee maxkamadda ciidamada ayaana ku soo eedeeyay labadan nin ee maxkamadda ka soo hormuuqday inay wax ka mareegeen qaraxa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa la filayaa in ay ku rido xukunno adag waa haddii lagu helo gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas iyo ninkan kale eedeymaha loo jeediyay. haatan Muqdisho, ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa safar shaqo uga ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo ku jeeda dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington halkaasi oo uu kaga qayb galayo shirka sanadlaha ah ee Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka IMF. shirkan sanadlaha ah oo looga hadlo arrimaha maaliyadda, caqabadaha iyo wixii ka hirgalay qorshayaashii maaliyadeed ee lagu soo bandhigay shirkii ka horeeyay ayaa waxyaabaha sanadkan looga hadlayo waxaa ka mid ah barnaamijka geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya. mudane Khayre inta uu halkan joogo ayaa waxa laga yaabaa inuu kulamo la yeesho madaxda Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka oo uu kala hadlo in Soomaaliya lagu garabsiiyo qorshaha deynta looga cafinayo dalka oo meel wanaagsan uu soo gaaray. Tunisia, Qays Saciid oo horay buugaag badan uga qoray sharciga iyo dastuurka dalka Tunis ayaa ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi Tunis. wuxuu doorashada ka helay 72.71 codbixinta doorashada wareegeeda labaad ee la qabtay 13 bisha Oktoobar. Qays Saciid waxa uu ka guuleystay Nabil Qaraawi oo ah hogaamiyaha xisbiga weyn ee baarlamaanka Tunisia ku leh tirada kuraasta xildhibaanada ugu badan. Qays ayaa ku tartamay in haddii uu guuleysto uu wax ka bedeli doono sharciga dalka isagoo ka hadlayana waxa uu yiri sharciga oo wax laga bedelo wuxuu shacabka Tunis oo dhan u horseedaya inay helaan waxa ay doonayaan. kharashka ugu badan uu Professor Qays Saciid uu doorashada uga qayb galay ayaa waxa la sheegay inay ururiyeen shacabka dalkaasi oo dhalinyaro u badan waana madaxweynihii ugu horeeyay oo ay shacabkaasi si xor ah u doortaan tan iyo markii uu geeriyooday madaxweynihiisa ka horeeyay. halka aad kala socoteen wararkaasina waxa weeye ogaalka Audiosom. fadlan subscribe nagu dhiirigeli faalladaadu waa noo muhiim. barnaamijkan waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. tan iyo inta aynu toddobaadka dambe kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa amaana Allah. waloogu magac daray muqaan la kala garan عكمها شذوذي هسها معانيو موزيقيو عد كيدلي واللوغو مقع دراي موقعا لك لا قرن عكمها شذوذي هسها معانيو موزيقيو عد كيدلي دقها كمالي مركا إلى وبا وحيسو مركعيا مغلوة ماي مغلوة ماي دقها كمالي مركا إلى وبا وحيسو مركعيا مغلوة ماي مغلوة ماي